رمضان الغالي أروانا فاعزف يا بلبل ألحانا لحنا بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا ليال aad iyo aad waxaad ila dhegaysataan qisadan aadka u muhiimka ah oo na tusinaysa adduunyada iyo cirib xumadeeda iyo cawaaqib xumadeeda. waxaa la wariyaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam in uu u yimid maalin maalmaha ka mid inuu u yimid ninkii wuxuu ku yidhi nabiyullaahi ciisow waxaan rabaa inaan ku raaco. way israaceen way tageen wax ilaa ay gaareen yacni webi jiinkii markay gaareen nabiyullaahi ciise webigii jiinkiisa markay gaareen way fadhiisteen asaga iyo ninkii kale waxay bilaabeen inay cunaan shay ay zaad u wateen. waxaa la sheegaa inay ahayd 3 xabo rooti ah. laba markay cuneen ayaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu aaday webigii subiya uga soo cabo. markuu soo noqday wuxuu waayey xabadii kale oo rootiga ahayd ayuu waayey meesha ku hadhay. wuu weydiiyey wuxuu ku yidhi meeda xabadii kale oo rootiga ahayd. wuu inkiray nabiyullaahi ciise wuu arrintaa wuu ku inkiray. way tageen way israaceen waxay arkeen markay meel marahayaan ugaar wadata 2 xabo dhal ah. nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu u yeeray labadii dhasha ahayd mid ka mid ah way u timid way soo ajiibtay. markaas ayuu bireeyey wuuna qalay wuu kariyey way cuneen asaga iyo ninkii kale oo la socday. markaas markay cuneen ka bacdi ayaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam wuxuu ku yidhi ugaartii ay qasheen waxaad ku istaagtaa ilaahay idamkiisa. way istaagtay markaasay istaagtay. markaas wuxuu ku yidhi nabiyullaahi ciise ninkii la socday waxaan ku weydiinayaa oo kugu weydiinaya kugu dhaarinayaa ilaaha ku tusiyey aayadda noocan iyo mucjizadan ku tusiyey waxaad ii sheegtaa ciddii qaatay rootiga. wuu inkiray way sii socdeen ilaa ay gaareen meel dhul bahgooya bannaana ay gaareen. markaas ayaa nabiyullaahi ciise calayhi salaam ciid buu nabiyullaahi ciise aruuriyey. markaas wuxuu ku yidhi waxaad noqotaa ciidey dahab noqo ilaahay idankii dahab ku noqo. ciiddii dahab ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigay idankiisa. markaas ayuu wuxuu u qaybiyey nabiyullaahi ciise ciiddii buu 3 qaybood u qaybiyey. 3 qaybood markuu u qaybiyey ayuu wuxuu ku yidhi qayb anaa iska leh qaybna waxaa iska leh adiga qaybna ciddii rootiga qaadatay ayaa iska leh. ii sheeg ciddii rootiga qaatay si aan qaybteeda u siino. markaasaa ninkii adduunye jacayl baa gashay wuxuu yidhi nabiyullaahi ciisow ciddii qaatay rootiga anuu ahaa. marka qisadaas noocaas waxay ku tusinaysaa in yacni adduunyada qofku maaragtay jacaylkiisu inuu indhatirahayo inuu xaqa ka indhatirahayo. wuu tegey nabiyullaahi ciise calayhi salaam ninkii faruhu ka qaaday. ninkii waxa u yimid 2 nin waxay damceen inay maalka ka qaataan oo dilaan. wuxuu yidhi waa idin afgaranayaa maalka 3 baan u qaybsanaynaa. 3 qaybood bay u qaybsadeen. markaasuu wuxuu ku yidhi yani 3 qaybood baan u qaybsanaynaa bay isku afgarteen. intaysan qaybsan ka hor ayaa ninkii wuxuu yidhi nin waxaan u diraynaa magaalada cunno noogu soo iibiyo. markii cunnadii uu ninkii soo iibiyey ayuu jidka ku soo tashtay. wuxuu yidhi maxaan wax ola qaybsanayaa cunnadan baan sun ugu darayaa markaas ayay ku dhimanayaan cunnada markaasna maalka o dhan anugu qaadanaya. labadii nin ayaguna way tashteen intuusan ninkii u imaan. waxay dhaheen yani waxay ku naftooda ugu sheekaysay in ay markuu ninku u yimaado dacaamka u keen inay dilaan maalkana 2 qaybood u qaybsadaan suusan macnaa maalka ula qaybsan. ninkii dacaamkii sumaysnaa buu keenay markuu u yimidna way dileen naftay ka jareen. dacaamkii sumaysnaa ayaa iyaguna cuneen markaasaa maalkii meesha ku haray. yani taas maxaan ka qaadanaynaa adduunyada meesha qofka ku dambaysiinayso iyo cirib xumadeeda iyo cawaaqib xumadeeda ayaan ka qaadanaynaa. marka walaalayaal nafteeda naftiina waxaan u dardaarmahayaa in aan adduunyadan aysan nakadin in aan u zaad qaadanno maalinta soo socota maalinta yawm alqiyaama aan u zaad qaadanno. zaad qaadashadaasi yani waxay noqonaysaa in waxa ugu fadli badan la zaad qaato adduunyadan oo aakhire loo zaad qaato waxa weeye waa cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala in la barto. cilmigu asaga kale fadli badan waxa ugu fadli badan cilmi alcaqiida ayaa ugu fadli badan. maxaa yeelay waa cilmiga kaliya oo lagu baranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka u waajibay. waa cilmiga kaliya oo lagu baranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka ka mustaxiila. waa cilmiga kaliya oo lagu baranayo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadka u bannaan ambiyada sifaadka u waajibay kuwa ka mustaxiilka kuwa u bannaan. maxaa yeelay cilmigaas qofkii aan baran waxa khatar buu ku sugan yahay. waxaa laga yaabaa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa u ekaysiiyo. qofkii ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa ku shabahayana yani qofkaasi qof islaam noqon mayo caqiidadiisa ayaa faasida islaam noqon mayo wax cibaadana laga aqbali maayo. makhluuqaadku guud ahaan 2 u qaybsamaan
waxay u qaybsamaan axjaam wax la yiraahdo dhumcu leh iyo acraad wax la yiraahdo sifooyin ayay u qaybsamaan axjaamtu waxa weeye yani waa waxyaalaha dhumucda laba u sii qaybsamaan axjaam gacanta lagu qaban karo iyo kuwa aan gacanta lagu qaban karin kuwa gacanta lagu qaban karo waxa kamid ah sida qofka yani geedka dhagaxa waxyaalahaas kamid ah kuwa gacanta lagu qaban karo waxa kamid ah aan lagu qaban karin waxa kamid ah sida maaragtay iftiinka mugdiga yani iyo wixii lamida sifaadkuna acraaduna waxa weeye waa tilmaamaha iska leeyihiin waxyaalaha jismiga iska leeyihiin sida cadaanka iyo madowga iyo urka iyo dhadhanka iyo xarakada iyo maaragtay xasiloonida iyo waxyaalahaasna waxa iska leeyihiin marka Allah subhanahu wa ta'ala ajsaamtaas iyo acraadaas midna ma shabaho ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku yiri laysa kamithlihi shay oo macnaheedu yahay Allah subhanahu wa ta'ala ma shabaho oo ma eka shay makhluuqaadkiisa kamida qofkii aamina in Allah subhanahu wa ta'ala uu eg yahay makhluuqaadkiisa uu eg yahay yani qofkaasi diinta islaamka kuma jiro ma noqonayo qof ilaahay subhanahu wa ta'ala rumeeyay sidaas darteed ayaa culimadu waxay dhaheen aayaadka daahirkoodu yani oo tusinaya mutashaabiha aayaadka daahirkoodu yani uu soo degdegayo in ilaahay subhanahu wa ta'ala makhluuqiisa uu eg yahay daahirkooda lagu xambaari maayo waxa lagu fasirayaa macna waafaqahaya aayaadka quraanka kariimka oo muhkamka sida aayada quraanka laysa kamithlihi shay إمام أحمد سيدنا إمام أحمد الرفاعي وحو يري عقائدنا كإلالية إناد قبصتان يعني كتابك يصنها آيات القرآن كأما أحاديث كتب متشابهة ظاهر كود إناد غلطان كإلالية محايا لأرنتاسي قبصة شداسي وابا أصل كقال لما تغفك هدوء قبصة يعني متشابه هدوء قبصة ظاهر كيسة دينة الإسلام كوكب حية آيات متشابهة وحا كمدا آيات الرحمن على العرش استوى كمدا آيات معنى هذا ماهن إله سبحانه وتعالى إنه عرشه فديه سيدنا علي الإمام علي وحو يري إله سبحانه وتعالى عرشه وحو أبوري موچين هيو أوديس يقدريس وموچين هيو ومو أبورين إنه بوس يمكان وكيش ومو أبوري سياس درتهد آيات القرآن الرحمن على العرش استوى وحي لهذا معنى وافقه آيات القرآن ليس كمثله شيء أي لهذا ومعنى هذا هي آيات القرآن يعني الرحمن على العرش استوى إن إلهي سبحانه وتعالى وكحفظي عرشك إنه صورع أو بربرية سموات كي أرضه إنه إلهي سبحانه وتعالى وأرنتاس يعني أساس تاي آيات الرحمن على العرش استوى معناها صدق أنكم معنينا وحي وافقيسا آيات القرآن الكريم ليس كمثل شيء ما وافقيسا سيدو كلا أحاديث المتشابهات كوحا كمذا حديث نبي قال أو ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حديث كاس معنيه سماه الله سبحانه وتعالى إنه ذات أهان وسودجها هي أو أنت السماء ذاك سودجه أرض إيمان إمام حيا لتاسوها كمية صفات كمخلوقات صفات كمخلوقات كمية مركة حديث كان معنيه سوا محي وسيد علماء الكفار سيد كسرناتي وكسرها هي الإمام مالك وكسرها هي إمام مالك وحكوفة السري حديث كان إن واحد أي سود جالس إنه يتهي ملك إلهي سبحانه وتعالى وصادر هي مركز من الكلمات كان أولي هي يا دافيد ويديسن هي الله دافع يا الله سبحانه وتعالى وحكب ويديسن هي الله جاء أقبله وحيالها أصلا أي حديث كان يعني ساس حنبارسية سياس بيوي حديث كان معنيه سؤال ما إلهي سبحانه وتعالى ذاتها وسود جها هي منهن آيات متشابهات كمعنى هذا إيه حديث معنى هذا ظاهر كمعنى إن إله سبحانه وتعالى مخلوقات سوء وحي ليهين معنا وافقها هي معنيه صحيحة نحن بالبهجة يغمرنا ويؤجج فينا النيران